السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo koobi doonaa taariikhda boqortooyadii Mongolia oo ahayd taariikhda boqortooyadii ugu weynayd oo soo marta iyo argagixii ugu weynaa ee soo wajaha caalamka, taas oo gacanta ku dhigtay boqolkiiba 22 dhulka caalamka ama bad gaaraya 330 milyan oo kiiloomitir iskuwa, taas oo ah bad ka badan qaaradda Afrika oo dhan. ka hor dhalashada boqortooyada dadka Mongoolku waxay ahaayeen dad u qaybsan qabiil walbana leeyahay suldaan u gaar ah oo iyaga laftooda ayaa xuduudo kala lahaa iskuna duuli jiray. balse taariikhdaas Genghis Khan ayaa isu magacaabay hogaamiyaha mid ka mid ah qabaa'ilkii Mongolia, kadib waxa uu seefta mariyay oo xoog ku mideeyay intii soo hadhay. dagaaladu galay reer buu intuu jabiyay ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta la soo qabtay 70 ka mid ah nolosha igu kariya buu yidhi, iyagoo noolba la kariyay. يعني ninka madaxda sida uu fakaraya buu ahaa. waa Mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen oo boqortooyadan uu qabsan doono intuu qabtay buu 70 ka mid ah yidhi ha la kariyo, iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan. wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'id oo dad hogaamin karo ururin kara manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariis oo lina. 1207 ayaa Genghis Khan duulaankiisii ugu horreeyay ku qaaday dawladdii Shiinaha, kadib 3 sano oo dagaal ah ayuuna gacanta ku dhigay, wuxuuna muddo kooban ku qabsaday Siberia, Korea ilaa iyo China. kadib waxa uu samaystay dastuur uu ka soo ururiyay oo midba wax ka soo qaatay diimihii caalamka, uguna magac daray Al-Yasiq. 1219 Genghis Khan waxa uu ergey u diray sultaanka dawladdii islaamiga ahayd ee Al-Khwarizm, kaas oo sultaanka ugu baaqay inuu isdhiibo, taas oo keentay in la dilo ergeygaas. dilka ergeygaas ayaana soo dadajisay in Genghis Khan iyo ciidamadiisu afka soo saaraan dhulka dawladdii Khwarizm. dawladda Khwarizm waxay ahayd dawlad ballaaran oo ka talin jirtay dhulalka maanta loo yaqaano Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan iyo qaybo ka mid ah Iran, waxaana caasimad u ahayd Orjanda oo maanta dhacda Turkmenistan. muslimiintu waxa ay ka war heleen duulaanka Tataarka, kadib waxa ay diyaariyeen ciidankii ku bixi lahaa Mongoolka. 1219 ayaa ciidanka Mongoolku ka soo gudbeen webiga Siixoon oo dhaca maanta dalka loo yaqaan Kazakhstan, waxaana labada ciidan fooda isku dareen bariga webiga Siixoon. dagaal jilbaha la isku aasay oo 4 maalin qaatay ayaa dhacay. goobta muslimiinta waxa uga dhimatay 20,000, halka ciidanka Mongoolkana ay ka dhinteen tiro intaas ka badan. intaas kadib hogaamiyihii ciidanka muslimiintu waxa uu ciidankiisii dib uga baxay goobtii dagaalka, taas oo jaanis u noqotay manaxayaashii Mongoolka. ciidanka Tataarku ma aysan istaagin ilaa ay gudaha u galeen Bukhara oo ahayd magaaladii uu ku dhashay al-Imaam Bukhari. xasuuq aana taariikhda hore loogu arag ayayna Mongoolku ka geysteen Bukhara. taariikhyahanka muslimka ah ee Ibn Kathir mar uu ka hadlayay dhacdada magaalada Bukhara waxa uu yidhi waxay dileen dad tiradooda Ilaahay keliyii ogyahay, waxayna qafaasheen dumarkii iyo carruurtii, magaaladana dab ayay qabatiyeen. intaas kadib ciidankii Mongoolku waxa ay dab qabatiyeen magaaladii Bukhara ilaa magaaladii isku bedeshay dambas madow. kadib gumaadka reer Bukhara, ciidamada Mongoolku waxay afka saareen magaalada Samarkand oo ku taala dalka maanta loo yaqaano Uzbekistan. ciidankii dawladda ee magaaladaas joogay waxaa soo food saartay baqdin kadib markii ay ka war heleen ciidanka Mongoolka ee dhinacooda u soo socda, taas oo keentay in dadkii shacabka ahaa ee magaaladu is abaabulaan. waxaana ciidanka Mongoolka ku baxay dad aan tababarnayn oo gaaraya 70,000 oo qof. Mongoolku markii ay arkeen tirada dadka ku soo baxay waxa ay sameeyeen baqo carar amaba dib u garasho xeelad dagaal. waa niman tababaran oo ilaa China wixii dad joogay soo cunay, kadibna dhinac kasta ayay uga yimaadeen dadkii ku soo baxay, waxa ayna ku sameeyeen gumaad ba'an. 70,000 ayay dhulka dhigeen, kadibna magaaladii ayay galeen, waxa ayna mariyeen wadadii ay mariyeen Bukhara. Tataarku meeshii ay maraan ugamay tagi jirin qof nool, magaalooyinkana dab ayay qabadsiin jireen. dhulka muslimiintana waxa ay ka geysteen falal aanan taariikhda hore loogu arag,
gaar ahaan mandaqada khuraasaan iyo aasiyada dhexe. dadkii ku noolaa magaalooyinka marwa, timrid, balaq dhammaantood seefta ayaa la mariyey. xilli ciidanka mongoolku ay gumaad ba-an ka wadeen aasiyada dhexe ayaa dhanka kale waxaa ciidanka mongoolku guluuf adag ku qaaday ciidankii ruushka 1923 waxaana natiijada dagaalku noqotay gumaadka ciidankii ruushka. waxaana gumaadka ciidanka ruushka mas-uul uga ahaa mongoolka hogaamiye ciidan oo lagu magacaabo sawbolto. kadib gumaadkii ciidamada ruushka 20,000 oo ciidan tataar ah ayaa afka saaray magaalooyinkii waaweynaa ee ruushka. waxa ayna ka geysteen xasuuq la mid ah kii ay ka geysteen magaalooyinkii muslimiinta. 300 oo sano ayuuna ruushku ku jiray gacanta mongoolka. 1240kii ciidanka mongoolku waxa uu cagta soo dhigay bariga qaaradda Yurub. 1242kiina ciidanka mongoolku waxa uu cagta mariyay ciidamadii Hungary iyo Croatia dagaalkii Zaaju. kadibna dabaysha waxriiqda ee mongoolku waxa ay u soo gudubtay Poland waxaana ciidamada Poland lagu jabiyay dagaalkii Lignista. isla sanadkaas mongoolku waxa uu qabsaday Bulgaria. kadib gumaadkii ciidamada mongoolka ee Yurub waxa ciidamada mongoolku dib u bilaabeen weeraradoodii dhulka muslimiinta. 1258kii ayaa hogaamiye mongool ah oo naxariis daran laguna magacaabi jiray Holako gudaha u galay caasimadii khilaafadii Cabbaasiyiinta ee Baghdad. waxa uuna ka geystay xasuuq aanan taariikhda hore loogu arag. 89% dadkii magaalada waa la gowracay. 1 milyan oo qof ayaa mongoolku ku gowraceen gudaha Baghdad. heer midabka webiyadu isbedelo. mongoolku dadka ay gowraceen waxaa ka mid ahaa khilaafkii khilaafada Cabbaasiyiinta al-Mu'tasim billah. 40 maalin ayuuna socday gowraca dadka Baghdad. tataarka cid hor istaagta ayaa la waayay caalamka oo dhan. ciddii ay ku duulayaanna inta aysan gaadhinba ayay isu soo dhiibi jireen. mongoolku waxa ay gacanta ku dhigeen dhulalkii muslimiinta. waxa ay baabi'iyeen oo xasuuqeen shacabkii. boqoradiina dhegta ayay dhiigga u dareen. isla sanadka 1258 mongoolku waxa ay ergey u soo direen maamulkii u dambeeyay ee muslima waxayna ahayd damacoodii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika. waxaana loo diray dowladii mamaaligta ee ka talin jirtay Masar dambaal u dhignaa sida tan. هناك وحلي مقع إلها عركة له أي واجب كطاعة ستهيبا كوب فرفرطي دول كي مكانسيي خلق جيسا يقصر لضي بقر يهوب يرميش تشوغا ولي بعض ضومها كمدي من جنس المماليك ترسني مصر يا انت ودا دو حكومه waxaad ogtahay buu yidhi annagu inaanu nay askartii ilaahay cadhada ilaahay baana laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu salliday waxaan dhul soo baabi'iyey baa kuugu filan cibro qaadasho ee dadka kale ku cibro qaada buu leeyahy oo maxay yeel amarkiinna noo dhiib intaan ceebtiinnu muuqan oo gafkiinnu idinku dhicin annagu ku ooya uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waanu furannay fasaadkana waanu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku ah buu yidhi annagana eryashaa nugu ah inaa idinku yaacdaan waa waajibkiina buu leeyahay anna inaan idin caymadiyaa waa waajibkay saaran dhulkee idin hoyn kara xaggaa seeftayada ka geli kartaan gacantayada lagama baxsado fardahayaga lagama dheereeyo seeftayadu waa sida danabka warmahayagu waa kuwa wax jeexa qalbiyadayadu waa sida buuraha tiradayadu waa sida ciidda qalcad iyo xusuuni yacni meel la galaa wax nagama celiso ciidan la samaystaa wax nagama anfacaan baryadiinnana looma aqbalo waayo buu yidhi xaaraantaa cunteen oo salaanta inaa celisaan baad diiddeen oo dhaartaa beeniseen oo cuquuqul waalidaynkaa idinku tiro batay oo cisyaankaa idinku badan ku bushaaraysta buu leeyahy dullinimo iyo mahaana markaasuu qur-aanna ku soo qoray meel kasta adiib munaafaqaa jooga kuwan wuxuu soo qorayaa
afkan carbeed caynkana soo qoray waa udaba munaafiqiin oo tataar ka tirsan quraan bay soo istidlaanayaan dhayso warqada holaaka waxa ku qoran فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هولاك سوقرية ما أنت بولي عذابك وح دلية أيا ليدين وحا عمل سميسين دراديد كوا ظلمك السماية ماشي ونقون دونا وقران دونا بولي هولاك وحولي وقد ثبت أن نحن الكفر وأنتم الفجر بولي واسوغنت بيقول أنا قلنا نقالني إذنين فاجرين تهين وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور لكن وحنا وكين التحامي بيقولي الله قعنتي سوح ولي بكو تشيران تربدني دون أنك أكتيا ووحير بيقولي شرفتي أننا أكتيا دوا ذليل لمو ما لملوككم علينا بغير دلنimo waxaan ahayn buu leeyahay aan boqortooyooyinkiina u hayaa ma jirto waraaqdan wuxuu ku gabagabeeyay fala tutilu alkhitaba wa asri'u radd aljawaab warkana ha igu badinina jawaabtana dhaqso u soo dira war yaro kooban oo way isdhiibnay una soo dira de wax kala leedin kama sugayo weeyaan saasu hola ka soo qoray والرسالة أن دبلوماسية أقونين دولكم مركب وذا هضليان ولو ضعيف يكاد الله هضليساه نوع من ماء الوجه بي والدوران وسيدا دي أسكرتو أما ضدك السوق وذا هضلان ولا ما هضله قفك الدولة مامولة ولو ضعيف اسكي ويدك هاركي الدولة دا يريرو انت الدولة دا واوين وتقال إذا دانها اللي بدأ الدولة دوت بانك وذا هضل سيدي مستقبلك الله هرمارين لها اللغة الدبلوماسية قفك ماء الوجه بالله إلى عليها لكن هولاكت حتى تاسكو ما جرتو رسالة دي سوح ويان وادقال وحانا ويان اسديبا إذن كان وح شرط يكو حدين ugu dambeyntiina ciidan Mongool ah oo uu hogaaminayo Holaako iyo ciidan weynihii muslimiinta ayaa isku haleelay goobta Aynu Jaaluud natiijada dagaalkuna waxa ay noqotay gumaadka iyo burburinta ciidankii Mongoolka ugu dambeynna damaciid Mongoolku ay ku doonayeen inay ku qabsadaan caalamka waxa uu ku jabay goobtii Aynu Jaaluud